soo dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran janalkan Exploration Somali. Insha Allah part 2 ayaa maartay caawa duubaya website-kani The Universal Goal. Website-kani saa idin sheegay waxa uu bixinayaa investment. Fadlan marka koowaad dad channelka ku cusub tahay subscribe, like and share and comment. Intaa markaan kasoo gudubno linkiga website-ka waxaan soo dhigi doonaa sanba xalay video soo dhigay description-ka comment-iga horeeyana waan ku reebi doonaa. Casharkan waa video-ga part 2 oo result-iga waxaan doonayaa hadda video-ga xalay soo daawatay waxaad ogaanaysaa xalay meeshuu maraysay kontadeenu, caawana waxaad ogaanaysaa meesha ay marayso kontadeenu. Marka insha Allah before iyo after baan doonayaa inaan ka dhigo video-ga. insha Allah part 3giisana waxaan soo duubi doonaa anigoo maartay withdrawal gareynaya lacagta. insha Allah saa idin sheegay xalay tad waxaan ku dhufanaa login maadaama aynu leenahay userka xalay si loo sameeyay aan idin sharxay. waxaan ku dhufan doonaa meesha ku qoran tahay login. login markaan si tan ugu dhufano halka waxaynu gelin doonaa magaceena, halka kalena waxaynu gelin doonaa passwordka, xaggana waxaynu gelin doonaa lambarka xaggan ku qoran. marka insha Allah socod wanaagsan. markii isaan loogu dhufto xagga kan waxaad ogaanaysaa in maartay sheegay userkeena already binku inoo save gareysnaa. kadib waxaynu soo geli doonaa application-keena dhexdiisa haddii la haydo. marka hadda waxaynu soo galnay application-keena dhexdiisa. application-keena waa kan saa arkaysidna lacagteena waxaa inoo maraysaa $48. xalaytana waxaan u malaynaya waxay maraysay meelahaas ilaa maartay $32 saa filayo. haddaa videoga dib u soo daawatidna waa arki doontaa qaabka la isaga diiwaan geliyo iyo qaabka lacagta lagu shubto iyo qaabka looga baxo. saddexda qaab waan ka soo hadlay. haddii la ahayd man haddaa dib ugu laabato waad fahmaysaa waanad maartay balkirinaysaa. okay, waxyaalaha ku cusub baan inoo sheegayaa. waxaan ku dhufanaa halka ay ku qoran tahay partnership maadaama oo maartay xalay aan website-kan soo dhigay. partnerkiina waxaan ku dhufto dadka ina soo partner gareeyay oo maartay website-ka linkiga aan soo dhigay soo raacay waa 18 qof. maybe inaadan intiina badan maartay linkiga aadan arkin oo waxaan dareemayaa linkiga inaad i weydiinaysaan dadka intiina ugu faraha badan. inta qof ay lacag dhigatay waa afar qof. inta aan lacag dhigan laakiin linkiga qaadatay oo maartay linkiga save gareystayna waxa weeye waa 14 qof. marka insha Allah waxaan rajeynayaa maartay in midaana aad fahanteen oo maartay dad badan maadaama ay cadeen noqotay in 18 qof ay maartay linkiga aan soo dhigay ay soo raacaan. xagga waxa kaaga muuqata in dhalinyarta badankooda ay xiiseynayaan inay application-ka ay deposit gareeyaan. maybe laga yaabaa in 18 qof ay maartay badidoodu ay ka yar dhacayaan inay lacag ku shubtaan, laakiin insha Allah waxaan ku shubtay $50 waliba 0.5 baa ii dheer maadaama ay lacag hore ku jirtay. marka insha Allah waxaan rajeynayaa inaan anigu idin noqdo qofka idin tijaabiyey oo ku tijaabiyey $50 kiisa haddii la haydmo oo maartay result-iga kasoo bixi doona halkaan aad arki doontaan haddii la haydmo. saynu qabsanay waxaynu qabsanay muddo ku siman 7 days. markii 7 days kadib insha Allah waxaan rajeynayaa maartay inaan maartay wixii result isla aragno. haddii la hayd mana sabtiga ayaan doonayaa maartay inaan aragno wixii result oo meesha kasoo biiray haddii la hayd. marka daily waxaan qaadanaynaa $25 1 hour waxaan qaadanaynaa per hour waxaan qaadanaynaa 1 hour $1. insha Allah waxaan rajeynayaa madaan isla fahnay. wixii intaa ka dambeeyay waxaan rajeynayaa maartay part 3geena inuu noqon doono withdrawal. part 3geena inuu noqon doono rajeynayaa withdrawal. marka insha Allah ilaahay naga dhiga maartay kuwii time-kaas ilaahay gaarsiiyey iyo time kale badan oo maartay aynu isla humi doono lacagta marka ayna soo gasho income-ka ah iyo maartay lacagta markaas inagu maartay aynu faa'iideyno haddii la haydmo. fadlan dad channelka subscribe, like and share and comment. wixii su'aalaha qabtidna insha Allah waxaan rajeynayaa inaad maartay commentiga igu weydiin doontid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.